anigu muraayadii qalbigayga ayaa mar qura jabtay waxaana ku waayay labadeedii lugood kadib gaari bas ah oo aan saarnay oo kooxo burcad ah soo weerareen isbuucaas gudihiisa waxaan ku jiray qabanqaabadii arooskayga waxaana qalbigayga ka soo gooday in wax walba ay burbureen laakiin noloshaydii sidee isku beddeshay waa qiso xanuun badan oo aan rajeynayo dhammaan saaxiibada ku xiran bartayda YouTube-ka Socdaal 24 inay wax badan ka faa'iidi doonaan qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tani mulki waxay ahayd gabar qurux badan oo joog Allah oo siiyay markaad aragto cadaanta quruxda ee leedahay ma aysan ahayn mid suuqa laga soo iibiyay waxay ahayd mid abuuristii Alle oo siiyay sidoo kale mulki waxay ahayd gabar jaamiciyad ah waxa ay dhameysatay dugsiga sare waxayna dhiganaysay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalkeena da'deeda markii ay soo bilowday jacaylka waxay jirtay 18 sano laakiin intaysan sameyn jacaylka waxay qaaday tijaabooyin fara badan qofkaas ay nolosha la wadaagayso oo ay islahayd ma u qalmaa qofkan haddii noloshaada uu ku soo biiro muxuu ka bedeli karaa noloshaada muxuu ku soo kordhi karaa dabiici ahaan ku bedeli karaa habdhaqameedkaada iyo wax walbo mulki in muddo markii ay wada xiriirka jacayl waxa uu kala dhaxeeyay mahdi waxa uu kamid ahaa dhalinyarada ee wax isla bartaan aad ayayna isku xiisay jireen mahdi waxa uu ahaa aamusna afgaaban oo aanan hadal badneen laakiin marka uu la hadlayo mulki hadalka ka quruxda badan ayaa ka soo baxayo waxaad isdhahaysaa ma abwaana ereyada suugaanta uu tirinayo gacalisidiisa xitaa markuu u tirinayo hurdo ayaa qabato dareenkeeda ayaa isbedelo jawigeeda ayaana noqdo jawi farxad badan mulki markaas ayay dhihi jirtay gacaliye waxaan kaaga doortay raggaas oo dhan oo xarakooda ayaa ah anigu inaa qiimahayga kor u qaadaysid hubaal mahdiyow anigu waan ku jeclahay raggaas oo idil anoo kula simeen ayaan daacad ku ahay markaas ayuu sidoo kale mahdi wuxuu dhahay waxaa taa inan yarow cudoon naftaa ku raacdo jawiga caashaqa baad ii shiday adoo dadkay la simeen daacaduun ii ahaaw mulkiye abbaayoy maalmaha iftiimayo cadceedda guusheedu halka darajo aan ka rajeynayo waxay tahay adigoo marwo ii ahoo shaatiga ii toosinayo dhabanada iga dhunkanayo anigoo shaqo aado alla ereyadu macaan badana laakiin muddo markay isla socdeen muddo 4 sano ah ayuu xiriirkooda jacayl oo quruxda badan uu socday jacaylku marka laga hadlayo wuxuu yahay mid guul daridiisu ay badan tahay waxaa jiro 2 qof oo sidoo kale muddo isla socday inay isku kalsoonaa waayaan oo noloshooda ay burburto waxaa jirto 2 qof oo xiriirka ka wada dhaxeeyo haddii ay isla socdaan iyo haddii kale wax qiimaa uusan lahayn kuwaani ma dhihi karno waxaa ka dhaxeeyay jacayl oo keliya habeenkii dhafarkooda waxa uu bilaabi jiray 1 saac oo habeennimo ilaa 8 habeennimo sheekada kaftanka ereyada macaan sawirada quruxda badan ee la isku diray dhabtii dhegta kama daaleen muuqaalka quruxda badan ee sawirada isdhaafsadaan indhaha kama aysan daaleenin habeen walba waxay lahaayeen jadwal cusub iyo sheekooyin cusub ayay lahaayeen sidaas oo ay tahay waxaa aad u fara badnaay cadawgooda inta badan jacaylku waxaa dilo saddexeeye laakiin ayagu dhegta jalaqu ma sii jireen oo mar walba waxay ku kalsoonaayeen xiriirka quruxda badan ee ka dhaxeeyay mulki iyo mahdi muddo kadib waxaa fahmay reerkoodii waana ay isguursadeen laakiin guurkii intuusan dhicin ka hor waxaa mahdi uu doontay saaxiibtiis mulki kadibna waa la siiyey markii la siiyey maxaa dhici doono
isbuuci ay isku soo diyaarinaysay arooskii. Tusaale haddii aad maqashid saaxiibta ayaa waxyeelo soo gaartay, sidoo dareenkaada noqon lahaay? Saaxiibta ayaa wax kale ku dhaceen, haddii aad maqashid maxaa samee lahayd? Arrintii sida aad filaysay si aan u ahayn haddii u dhacdo, qalbigaada sidoo noqon lahaay? Abuurista Alle ma ku qanci lahayd, mase guud ahaan waxaad dhihi lahayd wax walbo arooskeeda iga baxo hal iigu soo celiyo? Dabciga quruxda badan, deganaanta qalbiga, kalsoonida Allah iyo qalbi ku xiran Allah, iyo mar walba markaad tahay qof wax walbo Allah keeno ku qanacsan, waxaad noqonaysaa qof guulaysto. Mahdi saaxiibtiis isbuucii ku mashquulsanaayeen arooskii, waxaa dhacday mulki bas ee saarneed in kooxa burcad ah oo markaas doonaya inay dhacaan ay rasaas ku fureen. Kadib mulki waxa ay ku weysay labadeedii lugood. Mulki dhaawac halis ah ayaa soo gaaray. Kadib waxaa loo sheegay saaxiibkeed Mahdi waa uu naxay, wadnaha ayaa istaagay, istaagga ayuu ka dhacay, noloshiisa waa ay isbeddeshay, qalbigiisa waa uu burburay. Muddo kadib waa uu soo celiyey, wuxuuna ku qancay wax walba inay abuurista Allah ay ku dhacaan. Mahdi oo sidaas ah ayaa saaxiibtiis waxaa u sameysay mulki martiqaadka kii hore waa uu ka duwan yahay. Mulki hadduu arki jiray mulki oo labadeeda lugood ku socoto, markaa mulki oo labada lug ka go'an ayuu markani la joogaa. Mulki ayaa hadalka qaadatay, markaas ayay dhahday, gacaliye, anigu muddo ayaan kula socday, ma laga yaabo qalbigayga inaad ka goodid? Wadnahayga bar ka mid ah ayaa tahay, mar walbana waan ku jeclaan doonaa, laakiin wax walba hadda way dhammaadeen. Nolosheedii sidaan ayay isku beddeshay. Kadibna waa ay ilmeysay, ilintii oo ka socoto waa uu istaagay, ilintii ayuu ka tiray. Kadibna muxuu sameeyey? Markaas ayuu dhahay, gacaliso, marnaba ha nii jebin, anigu waxaan ku qanacsanahay abuurista Alle. Lagama yaabo inaan kaa tago. Shalay markii aad lahayd labada lugood waan ku jeclahay, maanta curyaan markaa noqoto, aniga ma laga yaabo in aan kaa tago? Garbahaada ayaan ahay, arooskii ugu quruxda badnaay ayaan kuu dhigayaa. Mulki waa ay faraxday, farxad ayay meelay la gaartay ayayna aqooweysay. Jacaylkoodii waxa uu noqday mid guulaysto. Nuxurka sheekada, ficilka sheekadan aan ka baranayno ayaa waxay tahay mar walbo inaad ku qanacdid abuurista Allah. Haddii aad baxdid gurigaada adigoo caafimaad qabo, inaad ku soo noqonaysid adigu ma cadday kartid. Abuurista Allah ku qanac, wax walbana inay dhici karaan ogaaw. Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. Waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24, iyo sidoo kale aaladdeena TikTok ah Socdaal 24, iyo page-keena Facebook ah Mahad Sheekh Abuukar. Tani intaa ku kulmi doono sheeko noocan oo kale ah, sidaas nabadgelyo. intaana soo gabagabeyn sheekadan waxaa qalinka u qaatay Jaamac Cusmaan Xirsi. sidaas iyo nabadgelyo.